arranka ka xanaajiyay Israa'iil ee Australia samaysay waa maxay? dhageystayaasheen iyo daawadayaasheena sharafta mudan, halkani waa Gaacir Media Tube. barnaamijka wixii cusub ee wararka ee Gaacir Media Tube ee aan kaga hadalno ama idinkugu soo gudbino arrimaha la xiriira sayniska, teknolojiyadda, difaaca, teknolojiyadda, arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo wixii la midka ah. haddaba dhageystayaasheen iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaanan u gudagelin warbixintaas oo dhammaystiran, fadlan share, like iyo followdaha page-ka iyo channelka Gaacir Media Tube ee aan ku kala leenahay Facebook iyo YouTube-ka. waa mahadsantiin. aan ku bilowno. dowladda Australia ayaa qaaday tallaabo ka caraysisay Israa'iil, dhinaca kale ee Falastiiniintana ka farxisay. Australia ayaa sheegtay in ay laashay ama la noqotay go-aankii horey ay ugu aqoonsaneyd oo ahaa galbeedka Jerusalem ama Qudus inay tahay magaalo madaxda Israa'iil. wasiirka arrimaha dibadda Australia Mr. Ben Wang oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dalkiisa uu la noqday aqoonsigii ay u aqoonsanayeen galbeedka Jerusalem ama Qudus inay tahay magaalo madaxda Israa'iil. Mr. Wang ayaa xusay in dalkooda 2018 uu u aqoonsaday galbeedka Jerusalem inay tahay magaalo madaxda Israa'iil, balse hadda go-aankaas ay la noqdeen. Mr. Wang, wasiirka arrimaha dibadda Australia, ayaa intaa ku daray in arrinkan uu muhiim ku yahay in lagu xaliyo wadahadalka nabadeed ee loo sameynayo Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. safaaradda Australia waxay markii hore ku sugnayd Tel Aviv, halkaas ayayna ku yeelaysaa, laakiin arrinka Jerusalem ama Qudus waxaa muhiim ah in lagu xaliyo sida waafaqsan heshiisyada qawaaniinta caalamiga ah, ayuu yidhi Mr. Wang mar uu warbaahinta la hadlayay. markii Australia ay go-aankan ku dhawaaqday, inkastoo Falastiiniyiinta ay farxadooda muujiyeen, haddana dhinaca kale Israa'iil waxaa la soo sheegayaa in mas-uuliyiinta Israa'iiliyiintu ay aad uga caroodeen ugana xumaadeen. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Mr. Yair Lapid go-aanka Australia wuxuu ku tilmaamay mid waxba kama jiraan ah. warbixinta ayaa intaa ku daraysa in Mr. Lapid uu yidhi go-aanka dowladda Australia waa mid been ah oo loo gudbinayay warbaahinta kala duwan. waxaan rajaynaynaa in dowladda Australia si caqligal ah ay nagala shaqayn doonto arrimaha kale ee macquulka ee naga dhexeeya. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Mr. Lapid ayaa carabka ku adkeeyay in Jerusalem ama ay Qudus tahay magaalo madaxda qadiimiga ee Israa'iil, asagoo tilmaamay go-aankaas in waxba ay iska bedelayn oo wax walbo la sheego. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa dhinaca kale Mr. Canberra ayaa u yeeray safiirka Australia u fadhiya Tel Aviv kadib markii saacad kadib Australia ay sheegtay in ay kala noqotay aqoonsigii galbeedka Jerusalem ay u aqoonsaneyd inay tahay magaalo madaxda Israa'iil. dhinaca kale xogayaha guddiga fulinta ururka xoreynta Falastiiniyiinta ahna wasiirka arrimaha bulshada Mr. Hussein Sheikh ayaa farxad ku qaabilay go-aanka dowladda Australia ee ku aadan Jerusalem ama Qudus. Australia arrinka ay ku dhawaaqday ee ku aadan in arrinka Jerusalem ama Qudus lagu xaliyo sida heshiisyada ama qawaaniinta caalamiga waafaqsan go-aanka la xiriira ee ay soo saartay xushmad weyn ayaan u haynaa, ayuu ku yidhi Hussein Sheikh fariin uu ku soo daabacay bartiisa Twitter-ka. dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaa waxaa inaga eg barnaamijka wixii cusub ee wararka Gaacir Media Tube. barnaamijka kan xiga intaan ku kulmi doono nabadiino.